maaha MJ waa ku dulmantahay marka sidaas baan dhihi lahaa haddana MJ Puntland waxay ku xiratay Ethiopia Xasan Sheekh Maxamuud waa dictator wuxuu ka soo waa kaligiis taliye hantidii dawladda ayuu hoteelka uga iibsaday Tanzania lacagtii wadanka ayuu qaatay qowlaawe xamse prime minister ma aha 5 wasiir ayuu siiyay beeshiisa musharaxiintiina Xasan Sheekh Maxamuud hal qof kuma uusan qaadan wuxuu diidan yahay dawladdu waa dawladda ugu xumeed nin jeclaysi ku dhisan Puntlandna Ethiopia ayay la xiratay waana kaligistarinimadiisa dictatornimadiisa asaga iyo rejiimkiisa beesha ma jarteen hal wasiir ku xigeen ayaa la siiyey mucaaradkii dani ayuu siiyey Xasan Sheekh Maxamuud iyo qowlaabe xamse cabdi bare waa qowlaabe qolka isku oyn uu igaga baxay wuxuuna siiyey cidiisii wixii oo dhan wuxuu siiyey nin jeclaysi ayuu sameeyey mucaarad baan ku ahay hadda ka bacdi dictator Xasan Sheekh Maxamuud iyo rejiimkiisa iyo xamse qowlaabe uma qalmo inuu ra'iisul wasaare noqdo balanti aan isku ogeyn uu igaga baxay qowlaabe xamse waxaana leeyahay waa dictator Puntlandna waxay la xiratay Ethiopia dani mucaaradkiisa ayay hal wasiir ku xigeen ayaa MJ la siiyey marka waxaan leeyahay waa dawladda ugu xumeed waa dawlad musuqmaasuq lacagtii dawladdu u dhacay ayuu hoteelo ku gatay Xasan Sheekh Maxamuud oo Tanzania uga gatay hantidii dawladda ayuu dhacay marka waxaan leeyahay dawladda federaalka dawlad iima aha hadda ka bacdina waxaa caddaystay inaan ahay mucaarad ka soo horjeeda dawladda waana xamse qowlaabe iyo dictator Xasan Sheekh Maxamuud labaduba waa kaligiis taliyayaal uma fiiriyaa aqoon iyo waxqabadkiisa aniga waxaan rabay inaan shaqo abuur sameeyo inaan tacbasho beeraad sameeyo inaan khayraadka waddanka soo saaro laakiinse habka ay hadda sameeyeen waxaan rabay inaan master plan keeno waxaan rabay shilin Soomaaliya inaan strong ka dhigo waxaan rabay inaan beero qamadi iyo bariis iyo galey iyo sisin iyo aan warshado keeno bur u bedela burkaasoo